waxgaradka magaalada Ceegaag iyo macallimiinta iskuulka hoose dhexe ee magaaladaasi ayaa kulan ballaaran ay ku qabteen gudaha magaalada Ceegaag waxay jaaliyadaha ka soo jeeda deegaanka iyo hay'adaha qaabilsan horumarinta waxbarashada ka dalbadeen in la tayeeyo waxbarashada deegaanka dhanka kale waxay ka dalbadeen in la dhiso dugsi sare oo deegaankaasi uu yeesho waxaana wararkaas ka hadlay Maxamuud Faarax Jibriil oo kamid ah macallimiinta wax ka dhigtay iskuulka hoose dhexe ee degmada Ceegaag iyo kaygaba waxaan halkan warbixin kooban ku siinayaa dugsiga hoose dhexe horseed Ceegaag inuu marayo heer wanaagsan taasoo ay dadaal ku sameeyeen macallimiinta iyo deegaankuba iyagoo iska kaashanaya xagga waxbarashada marka wuxuu marayaa 1 ilaa 8 oo ay dhigataan 8 fasal oo tiradoodu tahay 210 145 wiil iyo 65 gabdhood kuwaas oo ka qalin jebinaya fasalka 8 sanadka 2013 iyo 2014 kuwaas oo hadii ay gudbaan u baahan secretary marka beesha waxaan ka codsanaynaa deegaankan inay si degdega oo wax qabad leh sidii horeba u dhiseen dugsigan aan joogno inay u dhisaan secretary school alxamdulillaah rabbil caalamiin waxbarashadu meesha ay noo marayso waa meel Ilaahay subxaanahu wa ta'aala loogu shukriyo cid kasta oo wax nagala qabatayna iyaguna ay ku amaanan yihiin oo ay isugu jiraan mid hoose iyo dhexe iyo sareentaba maxadkuna waxa weeye waa maxad isagu diini iyo carabi weeye diini iyo carabi weeye isagu kana de waa iskuulkii maadiga ah ee caadiga weeye labaduba waxa weeye waa laba noo shaqeeyo aan u baahanahay weeye marka labaduba si wanaagsan bay noogu shaqeeyaan maxadku saddex qaybood buu isugu jiraa qayb sare oo haday ka baxdo jaamacad gudbi doonto insha Allah ta'ala qaybtaasi waxa weeye waa saddex fasal waa qaybta sare ee maxadka qayb iyo galaas dhexe iyo galaas hoose waa inta marka maxadka iyo iskuulka intaba waan u baahanahay joogto inay kabitaan iyo caawin wixii ay awoodi karaan inay naga caawiyaan xagga salariga macallinku hadii uu moralku u dhisan yahay oo xagga uu ka tiirsan yahay yani waxbarashaduna aad bay u horumaraysaa iyo secondary ma garanaysaa ay galaasyada eerka afadhiya waxaanu jecelahay in aanay Ceegaag ka waayin secondary iyadoo macallimiintaasi siyaabo badan ay wax ku dhigaan oo ay u hawlgaleen oo ay u samraan ma garanaysaa haddana iyagu wixii warbixina ay ina siin doonaan aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dadka jecel horumarka dadka Cabdi Casiis Aadan Jaamac TV-ga caalamiga ee Somsad buu hodle